300 oo sano iyo 9 bilood oo lagu daray oo hurdo ah. laakiin markii ay tooseen waxay u maleeyeen inay seexdeen hal maalin oo keliya. laakiin dhallinyaradu waxay run ahaantii ka carareen fidno, waxay la carareen iimaankooda iyo diintooda. ilaahay ayaa run ahaantii ka dhigay aayad mucjiso ilaa iyo qiyaamaha. qisadeenna maanta waa mid ka hadlaysa mucjisada iimaanka iyo tawakulka run ahaantii aan caadi ahayn. waa dhacdo taariikhi ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saaxiibayaal, kulanti wanaagsan. ku soo dhowaada Go4 Podcast. magacaygu waa Ciid. waxaan bilownay taxanaha Ramadaanka, qur'aanka iyo qisooyinka iimaanka ee bishan Ramadaan run ahaantii aan ku soo jeedin doono. haddaba mawduuceenna maanta run ahaantii wuxuu nagu run ahaantii martigelinayaa inaan run ahaantii fahanno axsarka ku jira qisada. haddaba aan bilowno qodobka koowaad. waxay ku noolaayeen wakhti run ahaantii sanad caabudka iyo run ahaantii shirkigu aad u weynaa oo aad ugu faafay waddankii ay degganaayeen. boqorkii xukumayay waddanka waxaa boqor dulmi badan oo run ahaantii ku qasbi jiray inay shirka caabudaan. boqor run ahaantii yaa dadka ku qasbi jiray inay sanabada caabudaan. qaar ka mid ah run ahaantii mufasiriinta waaweyn ee muslimiinta ayaa run ahaantii wax xuseen inay run ahaantii boqorka oo ahaa boqor Oomaan ah, laakiin qur'aanku magaciisa ma uu sheegin. laakiin waxa ugu muhiimsani waa casharada laga qaadan karo. dhallinyaro yaryar hiddiya ayaa run ahaantii u istaagay. allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi runtii waxay ahaayeen dhallinyaro yar oo rumaystay rabbigood, waxaanu run ahaantii aan ku u kordhinnay oo allaa leeyahay hanuun baan u kordhinnay. haddaba casharka muhiimka ay ka fahmi karno mudani maruu xaggan hanuunku run ahaantii wuxuu u baahan yahay. hanuunku run ahaantii wuxuu run ahaantii kordhiyaa marka wuxuu kordhaa iimaan wuxuu kordhaa markuu run ahaantii qofka u istaago oo u kaco. haddaba qodobka labaad waa go'aan geesinimada ay qaateen dhallinyarada yar. waxay run ahaantii ku dhawaaqeen rabbigay run ahaantii waa rabbiga samada iyo dhulka. taasi waxay run ahaantii ay ahayd kelmad run ahaantii halis ah xilliga ay noolaayeen. ahayd xilli run ahaantii dadka lagu qasbi jiray inay shirkiga run ahaantii caabudaan. haddaba culammadu muslimiin waxay run ahaantii yidhaahdeen tani waa tusaalaha ugu weyn ee dhallinyaradu run ahaantii diintooda ay run ahaantii ka hormariyeen noloshooda. haddaba si ugu muhiimtay run ahaantii xaggan ka qaadan karno iimaanka dhabta ay u baahan yahay run ahaantii geesinimo. markii ay run ahaantii xaqa run ahaantii ku dhawaaqeen cadaadiskii ayaa sii kordhay. markaas ayay run ahaantii qaateen go'aan kale. haddaba qodobka saddexaad run ahaantii ku salaysan yahay ka cararidda run ahaantii waddankii run ahaantii ee fidnada lagu hayay. markii ay arkeen halisa lagu hayo waxay doorteen inay badbaadiyaan iimaankooda, diintooda iyo run ahaantii aaminidda run ahaantii ay allah ay ahayd run ahaantii wax ugu qiimo badan ay haysteen. haddaba waxay ahaayeen dhallinyaro waxay run ahaantii ka tegeen waxay ka tegeen say ula cararaan. haddaba waxay ahaayeen dhallinyaro yaryar oo run ahaantii ka soo jeeda qoys maalqabeena hanti haysa, waxayna qaateen diinta islaamka. kadibna run ahaantii waxay la baxsadeen naftooda iyo iimaankooda si ay run ahaantii u adkaadaan iimaankooda iyo diintooda. haddaba haddii aan run ahaantii gudaha usii galno mawduuceenna, markii ay galeen godka mucjisada run ahaantii hurdada ayaa run ahaantii bilaabatay. markii ay galeen godka allah subxaana wuxuu leeyahay waxaan ku ridnay dhegahooga run ahaantii hurdo sannado tirsana run ahaantii. hurdadu run ahaantii aan caadi ahayn. qorraxdu waxay u ahayd run ahaantii jirkooga mid run ahaantii aan taaban kuleeda run ahaantii ku ridin. jirkooga run ahaantii allah u dhigay inay isrogaan run ahaantii si aan run ahaantii ay u dhaawacmin. haddaba eygoogii
ee quraanka lagu xisay wuxuu run ahaantii jiifay albaabka godka run ahaantii gacmihiisa run ahaantii way jiifeen haddaba tirada sanado ayay run ahaantii ay jiifeen godkan waxay joogeen godkan 300 oo sano iyo 9 sano oo lagu biiriyey 300 oo sano oo qoraxa haddaba miyiga ugu muhiim aan ka fahmi karno xaggan mudane ilaahay run ahaantii wuxuu maamulaa wakhtiga iyo jihada haddaba laakiin hurdadii run ahaantii kumay sii waayin dhallinyarada yaryar ee run ahaantii wakhtigii ilaah ayaa gaadhay kasoo toositaankii markii ilaahay uu doonay ayay run ahaantii soo tooseen waxayna isweydiiyeen intee ayaan joognay godkan dhexdiisa maalin ama qayb ka mid ah maalin ayay isdhaheen dhallinyaradii subxaana allah 309 sano ayay run ahaantii u malinayaan hal maalin haddaba cashirka ugu muhiimsan in ka qaadan karno wakhtiga ilaahay hortiisa waa wax yar qiyaamuhuna uu u gudub yahay laakiin markii ay run ahaantii magaalada ay galeen wax walba way isbedeleen ay dib ugu laameen mid ka mid ah ayaa run ahaantii u diray magaalada si ay run ahaantii si qarsoodiya wax u soo iibiyo lacagtiisii qadiimiga ahayd ayaa run ahaan dadka ka yaabisay boqorkii dulmiga ahaa oo run ahaantii wakhtigaa doogin oo ka haleelaya jiil cusub oo mu'miniin run ahaantii uu bedelay haddaba waxa ugu muhiimsani markii ay runta run ahaantii la ogaaday waxay run ahaantii noqdeen daliil cad oo muujinaysa in run ahaantii soo noolaadeen xag run ahaantii ay soo noolaatay dhallinyaradiis ay maqli jireen cashir ugu muhiimsani ilaahay xaaladda run ahaantii uu bedelaa wakhtiguu doono markuu doono haddaba markii ay mucjisadu la xaqiijiyey ilaahay run ahaantii wuxuu u qaaday uu oofiyey naftoodii dadkii run ahaantii waxay ay isu khilaafeen arrimo run ahaantii laakiin qur'aanku wuxuu run ahaantiina barayaa ha ku mashquulina run ahaan tirada ay ahaayeen dhallinyaradu ku mashquula casharada muhiimka run ahaantii laga soo dhex saaran karo alqurdubi wuxuu yidhi qisada run ahaantii waa daliil cad oo muujinaysa xaqiiqada qiyaamaha inuu iman doono ugu dambayn asxaabulkahf waxayna baraysaa iimaanka xilliga adag geesinimada xilliga shirkiga iyo gaalada tawakulka markay run ahaantii albaabadu xirmaan iyo in qiyaamuhu yahay xaq rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofkii akhriya 10 aayadood ee ugu horreeya suuratulkahf wuxuu run ahaantii laga ilaaliyey dajaal masiixu dajaal qisadani waa run ahaantii aayad waa mucjiso waa fariin ku socota dhallinyarada maanta waad ku mahadsantiisa fiican u dhegaysteen saa ayuu kuntidaba oo wanaagsan